بسم الله الرحمن الرحيم. انت وبلوغي iyo heestii uu sameeyay uga Zakariya oo hees aad u qiimo badan abwaan Xasan Samatan oo ku luuqanayo erayada ugu qaalisan heesta kale waxa kamid ah cadowgii ku gubaan guluf weerarayo gashiga kuwii looga dawgalay baan iskalaalayo ya sidii goodirkiisu la iskalaalay marka waa hees aad u qiimo badan كل وحنا مرينا هسيه شقيشك وحلاليين كميتهاي ودنيين تاع وذا ده كل واحد دليل دونا وحندي لها عبديلي دوي دو عفماده قادي مدحوينه ومدادنا ايكو كهدليا انا ما نعرف لكن ما مليون ايكو كهدليا iyo gabar baa masar la'aan haysta in badan baan arkay marka waxaan jeclaan lahaa bal inay xaq haduu daacad ka yahay qulil xaq walaw kana murra baliri فسقي فساد كعبديلي وفتحادين إني كهدلان هالك يكون مسقول لها إن هسها والدنيا ده ضد كلوك عنايا مدي جودا كعنايا حق كهاليا أنت سوا إسكهستا مركو ورا سبحان كوب الله برنامج كورك ودم بيجي أم وحياله ودم بيجي دجاج كيجي سوجاري إن كستون صاق قري مانتا وحنكحوا معي ببتدي ماموس مجال الجيجا in la xiray sababta loo xirana ay tahay la yiri dulmidiid ayaa ku kulma ama dadka dawladda mucaaradsan ayaa ku sheekaysta dacwo noocaas oo kala waa ayaan daro ganacsi ama business ama maqaayad reere iyo ciyaal laga biilanayay in maala yacniga loo xiro dadku meel kasta ku sheekaysan karaan jardiina ku sheekaysan karaan guryahooda ku sheekaysan karaan maqaayada caruuraha iyo reeraha laga biilayay in loo xiro dulmidiid baa ku sheekaysta ama mucaaradka dawladda ay soo yimaada markii koowaad maaha marar hore ayay dhacday waxa kale oo ka xumahay cagajugleyntii loo geystay culimada magaalada Wardheer Axmed Nuur iyo shaalaqaha liyu booliiska ee magaaladaas ay u geysteen ayagoo aad ugu canaantay Sheekh Axmed Rabiic iyo culimada kale in xarigii ay Facebook ama ay soo gudbiyeen ay soo gudbin culimadu xiriirna ma lihin waxa ay soo gudbiyay waa maamulka oo intooda badan dadka wax garadka ay san la dhacsanayn habka uu wax u socdo dad islaam oo ehelna ah kana xumaanay taadiga lagu la kacayo culimada iyo waayaraga waxaan uga mahad celinayaa shaqaalaha deegaanka intiisa badan daacada ah dadkooda inay u shaqeeyaan raba xuquuqdoodii lagu ciyaaray wiilal geljirayaal ahaa shalay oo daalimiinta dulman ahaa oo shaalaqayaal isku sheegay dusha laga saaray wasiiriya agaasimayaal looga dhigay deeq laba goole uu ku galgalanayo waan ogahay dhibaatada iyo culayska idin saaran waan ogahay shaqada inteeda badan idinkoo qabanaysaan inaan dadkiini ama aydan credit-ka idinku qaadanin abaalna la idinku hayn bal marar badan lacagihii aad xaq u lahaydeen aan la idin siinin adkaysta ayaan leeyahay waqtigii wuu soo dhawaaday dulmiga uu dhamaan lahaa jaahilnimadu ay dhamaan lahayd aqoon darida qabiilka iyo xigtada lagu dalacay deegaanka Soomaaliya waxa ka jira nin master haysta ama degree haysta oo aqoon badan ilaahay siiyay ayaa wiilan magaciisa qori karin ba madax looga dhigayaa ama gudoomiye degme ama maareeye ama agaasime tusaale waxa kugu filan ninka ina canab oo wakaalad aad u weyn maareeye ka ah inta badan magaciisa ma qori yaqaano Yaasin aadan waris baa kamida oo dad la shaqeeyo iga sheekay ay dhahan af Soomaaliga markuu qoro gabdhaha secretariyaashu way wareeri jireen 10 qof baa isugu yimaad jirtay warqada bal si loo akhriyo maxay yeelay sadarka kor intuu ka bilaabo hoos ku dhameynaya ayadoo kala jeejeeda laakiin cabdi way ilmaadeer yihiin sidaas ayuuna wasiir iyo hoggaan ku noqday waqtigaas uu dhamaanaya insha Allah ta'ala waqti cadaalad iyo sinaan iyo nin walba kartidiisa iyo aqoontiisa wax ku noqday ayaa la gaari doonaa waxaan ka codsanayaa wixii khaladaad ay dhaca Xasan Dheere iyo Sanyari iyo marka ay idin garaacayaan lacagta baada qora ay idin leeyihiin inaad record garaysaan taariikhda lacagta aad qorteen si hadhow toro loogu la xisaabtamo haddii kale dambiga idinka ayaa korka la idin saari waana sida ay rabaan waliba agaasimayaasha madaxa dhaqaalaha nimanka haya xisaabaadka dhammaan waad ka garayn kartaan wasaaradda maaliyadda waan ogahay waxa musuqmaasuq meesha ka dhaca si ay cadeyn u noqoto waxaan idinka codsanayaa inaad recordka gelisaan
guryihiina aad ku qarisaan meelo kale aad ku qarisaan dalkan la boobayo iyo dadkan la boobayo waa dalkiini xoolahan la boobayo waa xoolaha dhagax buur iyo qabri jahare iyo goday iyo fiiq iyo jigjiga dadka qasabka lagaga qaadayo canshuurtan aysan bixin karin reeraha la daala dhacaya abaaraha iyo rafaadka qasabka lagaga qaadayo waa lacagta daraa toolo oo kale dukaan yar oo waxa yaalaba uusan 20,000 dhanayn 20,000 warqad ay ku qoranto oo canshuur weeye la leeyahay laga qaadayo lacag ay shaqaysteen ma aha nimanka boobaya ee idinku amar ku taagleenaya waa lacag tii deegaanka ee dadkiina laga qaaday marka mas'uuliyad ayaa idinka saaran inaad cadeymihii iyo sidoo musuqmaasuq u dhacay iyo dukumeentiyadii aad kiib garaysaan oo aad meel ku xafidaan guryihiina ama meelo kale aad ku qarisaan hadba sida ay idinku suurtagelayso ama memory card iyo cloud-ka aad ku qarisaan dad aqoon labaatiin waad garanaysaan idinma tilmaamayo waxaa nasiib darro iyadana daadkii dhacay magaalada jigjiga ee biyo la-aan badan baa ka dhacday waxaana cadaalad darri ah guryaha cabdiile qaraabadiisa ama xaafadaha ay degan yihiin biyaa loo geliyay tuubooyin special wadooyin waxaa loo sameeyay cobblestone waxaan ogahay wado ama la ii sheegay wado ku taala xaafadan ee booli qaran loo bixiyay ama reer siiga wado ku taala hal guri baa loo soo jeexay wadada hal guri baa loo soo jeexay dadka kale wadada degan way ka faa'iideysanayaan laakiin guri baa loogu talagalay hal guri oo kaliya looma eegay meeshee munaasab ku ah ama halkee dhiiqadu dadka shacabka ay mataqaan ay ku dhib badan tahay yaa biyo la-aanta ugu jilicsan tusaale ahaan dadka lacagta leh ee madaxda ee cabdi qaraabada yihiin booyaday shuban karaan laakiin dadka aan waxba haysanin fuqarada reer jigjiga gaari dameerkiiba 7 bir haddii baaldigii laga qaado maalinkii oo dhan inkamkoodu uu 30 bir 50 bir uu yahay kama go'do marka dawladdu haddii biyo gelin sameynayso ama biyo dad ay siinayso kuwa fuqarada ah ay ahayd ee iibsan karin biyaha in priority-ga la siiyo ma aha in guryaha Marsin Village ku yaala biyaha la geliyo 24 saac biyaha guryaha ku yaala booli qaran ama Red Sea in biyaha la geliyo magaalada hadda waa biyo la-aan badankeed gaari dameeradii dhiiqadii dhacday bay la socon laayeen iyo daadkii dhacay iyo biyihii soo fatahay iyo biyihii oo dhiiqa meeran iyo qashinkii magaalada dhan ay ku jiraan waa nasiib darro xaafadaha gooni oo laga qabaysto oo biyo laga xabo inta badan magaaladuna ay biyo la-aan ahaato iyo dadka intiisa badan haweeye 20 wiil ee cabdi ay ilmaadeerka yihiin iyo 15 ay qaraabada yihiin xoog idinkuma haysan karaan waad ka fara badan tihiin waad ka aqoon badan tihiin waad ka karti badan tihiin awood baad u leedihiin inaad iska qabataan hadaladii maanta uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu khudbadii uu ka jeediyay Millennium Hall-ka waxa ku jirtay wuxuu yiri waxaan wax ka qabanaynaa hay'adaha amniga ciidanka sirdoonka iyo guud ahaan hay'adaha amniga isku waxaan sameyn doonaa dib u habeyn baan ku sameyn doonaa waxayna noqonayaan hay'ado isla xisaabtan ku dhisan oo accountable dadka u ah oo xadgudub geysan karin waxa kale uu yiri waxaan kor yeelaynaa sharciga lagu dhaqmayaa dawladuna dadka iskale ee dadka dawladdu iskama laha waa muhiim inaad fahantaan xagga loo socdo dawladda dadka iskale laakiin dawladdu idin ma laha cadaalad darrida dulmiga cadaadiska jigjiga idinku haysta iyo dhagax buur wardheer mooyaale iyo tacadiga xad dhaafka ah dawladdu inay idinku samayso xaq uma laha dawladdu idinka iskale idinka inay accountable idinku noqoto bay ahay cabashooyinkiina inay wax ka qabato inaad idinku la xisaabtantaan soo dhisataan soo doorataan hadallada ilaa hadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka soo yeeraya haday uu kaga dhabeeyo dhinac fiican baa loo socdaa laakiin dhibaatadu waxay ka jirtaa haddii aad adu dacwoonin oo lahayn dhib baa la igu hayaa walaalka baa xiran ama walaalka baa la dilay xoolahaagi baa la dhacay dukaankaagi baa laga xiray ganacsigii baa laga xiray shaqadii baa xaqdarro lagaaga eriyay ma dacwoonays meel loo ma dacwoonays waxba iga maqan marhid wasacab baad tumaysaa waxaad leedahay horumarku waa 100% 90 korna waan u soconaa adduunka meel 100% horumartay ma garanayo wadamadan horumaray waa 100% oranin marka ayada dadka ama wadankan aad ku nooshiin Itoobiya dhibaatadiina ma ogaanayso waxa idinka maqan ma ogaanayso
odayaasha koofiyad baclayaasha ee 10 kun la siiyo ee calooshadu shaqaystayaasha ma aha inay idin matalaan waa inaad la xisaabtantaan adoo baahan walaalka xidhan yahay eedada xidhan tahay reerkii qaar ay qaxeen dhulkiini la idinka dhacay haddana haddaad shacabka iska sii tuntid waa nasiib darro haddii maalba canshuur qayru caadiya lagaa qaado oo aad ogeyn meesha ay ku baxdo iyo waxa lagu qabto biyo la'aanna aad ka tahay haddii lacag lagaa qaado koronto aada haysanin waxay ahayd inaad shacabka tuminooda war lacagteedu xagee la geliyay lacagta laga qaado canshuurta inaad la xisaabtantid dowladda marka haddii aydan idinku cabanin oo idaan sheegin dhibkiina ciidana maartay urku baalla ma aha oo ma dhahayso wallahi kuwaas quluubtooda way dhiban tahay sax way dadaalayaan dad badan oo dibadaha jooga iyo meelo kale laakiin dadkiina gudaha loo baahan yahay inaad dacwadiina gudbisataan waxyaalaha ugu muhiimsan ee rabaada inaad ii sheego waxay tahay dadka uu dadku ka xidhan yahay ama eheladooda xaqdarrada lagu xidhay waa inay ka dacwoodaan magaalada Addis Ababa xeerlaaliyaha guud ayaa xaq ugu leedahay dastuurka Itoobiya inaad dacwo ka furatid qofka haddii xaqdarro lagu haysto haddii aan maxkamad la soo taagin waxay u badan tahay in warqad la soo qoro lagu soo daayo laakiin haddii aad dacwoon ama aad aqoon systemkiiba waa dib inteeda leh war dadkaygii baa xidhan maantana aad meelaha kaga qeylqeylisay cidna ma ogaanayso ficil samee u safar Addis Ababa xeerlaaliyaha guud u tag xafiiskiisa Ethiopian Human Rights u tag hebel oo maalinka la qabtay waxa lagu qabtay aan garanayn iska xiran hebel dacwo guri baa laga dhacay dacwo sheeg ninka ka dhacay abdiileen mas'uulka yahay oo arinta asagu waa amray sheeg hadduu asagu mas'uulka yahay inta badan asaga mas'uulka waxa deegaanka ka dhaca tuule ilaa iyo gobol marka dadku waa inay dacwoodaan waa inay qeyliyaan waa inay xaqiina idinku doodaan cidna idin ma keenayso samada waxa way qol sidii reer banu Israa'iil maartay maalba samada digaag iyo malab la idinka soo dejin maayo ma dhacayso waa inaad idinku xaqiina u istaagtaan iyo xuquuqdiina biyo la'aanta maanta jigjiga ka jirto waa inaad weydiisaan lacagtiina halka la geeyay 100 milyan oo bir ayuu laalush ahaan oo ugu dhiibay odayaal inay odayaasha Oromo kaga laalushaan labadii maalmood oo ugu dambeysay Nazareed bay iskaga daba noqonayeen Addis Ababa iskaga daba noqonayeen marba odayaasha Oromada ka tirsan ayay u tagayeen lacagtaas biyo gelin iyo biyo way ugu filan lahayd magaalada jigjiga barakacayaashii baabili ka soo qaxay ee ku rafaadsan managementiga iyo qolaji iyo deegaanka wax badan bay u goyn lahayd maya shalatoole Tigray baa lagu laalushay lacagtiina iyo xoolihiina maalba maninka xukunka Itoobiya qabtaan lagu laalushay goorma idinku hadlaysaan goorma oranaysaa war xoolaha anaga kuwaas way naga xoolo badan yihiin way naga dakhli badan yihiin xoolaha anaga dadka ku laalushay anaga wax noogu qabo beentiya propaganda intaad naga diis iyo ESTV riwaayad aad ka soo deynaysid waxa way inaad idinku istaagtaan odayaashan la socda ee inta badan barnaamijyada la wada toos bay qaar badan ani ugu yiraan adeer caruurtan ka korsadaa bay yiraan caruurtan ka korsadaa marka nin caruurtiisa korsanaya adiga ugaas kuma noqon karayo suldaan dantaada kama fikirayo marka waxa loo baahan yahay muhiimna inaad xaqiina u istaagtaan xoolihiina inaad kula xisaabtantaan maamulka inaydan ka yeelin 20 wiil oo cabdi ilmaadeer yihiin iyo 15 seediyaal iyo xidid ay yihiin inay idinku amar ku taaglayaan siday rabaan idinka yeelaan wiilka yar 22 jirka deeq buraale inuu maalba xafiiska kugu dhirbaaxo adoo konton jir ah agaasimo ah aqoon leh ka aqoon iyo khibrad badan ka waaya aragsan sidaad u aqbashay kadidi xaq aqoonta uu kugu maamulayo iyo garashada iyo khibradda xagu ka keenay ato waxiligi jaamacadda inuu ku jiro waa 22 jir weey Abdi Mahad waa 22 jir ma 23 jir xagu ka keenay Abdi bay ilmaadeeriin waa asaga ku maamulaya sirta macquul ma adaa ka karti badan adaa ka aqoon badan deegaanka kaama xigo ma uu laha asagu uma uusan dhalnin xaqaaga u istaag la hadal idaacadaha Itoobiyadii hore way isbedeshay la hadal media VOA la hadal Addis Ababa ka dacwo ruuxan ma soconaysa dheh cadaab baan ku jirnaa haddii aad oranin saan bay ku korsaarnaan asaguna wuxuu ku doodayaa dadku way barwaaqaysan yihiin sheekada uu ESTV idinka sheego iyo Facebooka ee 100% baan hormaray ayuu aaminsan yahay ayadoo daadku jigjiga saa u qaadayo gaari dameerkii la yahay biyaha magaalada jigjiga aydan qabaysan shalay iyo daraad biyo la'aan darteed biyaha cabtaan aad laadihiin iska daa gobol iyo meel kale magaalada jigjiga asaguna wuxuu akhrinayaa 100% way horumarku
haddii aad marka adiga jigjiga ku nool aada beeninin ooda dhihi waa beentii boqolkiiba boqol ma aha biyaanu cabnaanu la'na wada aanu maraan la'na dhiiqadii roobki ya ganacsigii baana laga xirayaa haddii aad u dhihin caruurteeda yaa ku oranaya yaa beeninaya ilaa adaa deegaankii ku noole aniga iyo hebel kale iyo dad kaloo badan haddii aanu si walba u sheegno macno badan ma soo kordhinayso adiga ku nool taada ayaa muhiima adiga ayaa muhiima dhibkaaga inaad sheegatid xal waa la gaari karaa laakiin waa markaa danta guud aad u istaagtid intaas waa dadka deegaankii jooga iyo dardaaranka la dardaarmay kuwa dibadaha jooga kaalintoodii kama ay soo bixin dadkooda inay u heliyaan shalay baan sheegay waxaan idhi saameyn bay adiga kugu leedahay ama ingiriiska jooga ama maraykanka jooga ama norway tacadiga iyo dhibka iyo dibudhaca iyo caburiska ka jira deegaankii adiga ayay saameyn kugu leedahay psychologically bay kugu leedahay waad ogtahay dhibka jira in adeerkaabaa khataro ku xiran kama seexanaysid waad warwaraysaa stress baa kugu dhacaya reerkiisi baad biilaysaa in hebel oo kalaad biilaysaa waxawey maalin walba mid baa soo qaxay mid baa soo tahriibay magafaa haysta dhibku kuguma yaro haddii aada meesha political solution iyo aada ka shaqayn sidii deganaansho rasmiya looga heli lahaa adiguna waad dhibanaanaysaa qayrkaa waad ka haraysaa ninka puntland ka soo jeeda ama somaliland ee wadankiisa ugu madax bannaan yahay ee xorriyadda ku haysta ee intuu tago ka shaqaysan kara lacagta abuuran kara waad ka dib dhacaysaa lama tartami kartid waxaad shaqaysidba adiga waxaad dirtid iyo warwar iyo mataqaana rafaad baa kuu dheer marka adiga dantaada ayaa ku jirta inaad xal kama dambaysa meesha laga gaaro inuu dhammaado caburisku inuu dhammaado tacadigu inuu dhammaado adoonsigu haddii aad u istaagin maanta muddo dheer unbuu kugu soco silaca adiguna waad rafaadsanaan kuwii wadankiina way rafaadsanaan waadun isla rafaadsanaanaysaan mar walbaba murugo iyo ciil iyo isxilkaanbin baad ku jiraysaa marka waa inaad u istaagtaa waxaan jecelahay inaan meeshan ka caddeeyo gabadhii maanta la xiray aadka loo wadwaday facebooka naciimo waan ka xumaa xariga lagu xukumay 3 sano reer somaliland waa dad dilmuraadiyad iyo hagaajistay wadankooda caqliguna uu shaqeeyo waxaan aaminsanahay inay arrinta ayadaa ayaku ay naga garasho badan ay xallin doonaan sidoo kale saaxiibkii cabdimaalig caldoon oo muddo kusoo noqon la somaliland waan ka xumahay waa waxyaalaha qaar iska dhaca system markuu jiro laakiin inaad ku mashquushid somaliland ood waqti gelisid inaad dacaydaysid adoo deegaan ka soo jeedid ama aad dhaleecaysid ood cadaawad ka abuuratid sax uma arko taana waxawey dadka soomaaliyeed ee deegaanka deriska la ah inaad u kala hiilisid ama aad la kala safatid adoo hab qabiil ku eegaysa ama dhinac kale waa laga fiican yahay waa inaad dadkoo dhan ay kuu sinaadaan soomaalinimada waa inaad qadarisaa qabiil weligaa ma midayn kartid qabiil hadda tusaale ahaan haddaad damacdo absame inaad midaysid waa lasii kala bixi ogaadeen haddaad damacdo inaad midaysid waa lasii kala bixi soomaalinimo waa dadka ugu xajin kartaa ama xuquuqdooda marka soomaalinimada somaliland iyo puntland iyo kuwa xamar jooga ha u kala eexanin haddii kala go-ayaan iyo haddii isku darsanayaan ayaku waa xor adu xor uma tihid waxaagii waxaa waajibku waa inaad wanaag kula wada macaamishid haddaad tiraahid hargeysa waa laga soo dhiibay xamarba waa lagaa dhiibay qalbi dhagax baa laga dhiibay puntland waa lagaa dhiibay it doesn't matter marka aduu ha u kala hiilin midna ha la safanin midna ha ka soo horjeedsanin dad walaalaha ah wixii khalad kula muuqda si sharaf leh war arrinta ilama saxsano u dheh laakiin dacaayad propaganda iyo maaragtay ha ka sameyn colaad ha u abuurin xanaf badan baa iska jira gobolada somaliland iyo dadka deegaanka oo dagaaladii 88kii waxyaalo badan marka ha soo kaakicin colaadii ha u tusin waxa ka dhaca hal maalin deegaankeena hal maalin waxa ka dhaca somaliland sanado kama dhaco arshan hadda gabadha cadaalad bay heshay 3 sano lagu xukumay maxkamad sharciya la soo istaagay xukunkaas waxa nala khaldanaado laakiin system bay martay deegaanka Soomaalida ama jigjiga 7 sano 10 sano dad baa xiran maxkamad aan la horkeenin wiska xiray wax maxkamad iyo cadaalad la horkeenin ma jirto kuwa la laayay oo la dilay tusaale yar aniga hadda ehelkayga 7 qof oo odayaal u badan ayaa xiran qabridaara ku xiran sharci lagu xiray ama waxay ayagu sameeyeen ma jirto hadda naciimo waxa leeyahay somaliland adaa dambiga gashay ama midnimo Soomaali raadisay oo dambi ka ah sharcigooda laakiin kuwa qabridaara ku xiran ilmaadeerka nahay ayagu dambi ay garan looma haysto
cabdirashiid cali shaac baana dhaliilay oo naga hadlay wey dambiga ka weyn ee qof insaan lagu xir la muxuu yahay qaar badan oo waxaan arkaa maal aan ka hadlay dadka qabri bayax lagu xiray kuwa jigjiga lagu xiray kuwa dhagax buur lagu xiray kuwa qabri daare oo 12 maanta barooranaya ama 3 4 5 7 qoraal ka soo sameeyay maanta oo kaliya ka soo sameeyay waa run waxa dareen lagu xiray qofka waa inaa ka hadashaa laakiin kuwa ku xiga ee ehelkaaga ee ka warqabtid ee dambi aynaba ayaku gelin loo haysto ayaa ka mudnaa maalin inaad ka hadashid marka ma aha inaad dhaleecayn markaas oo kale waxa weey xaq ma raadinaysid iyo dulmi ma diidanid ee Soomaaliland baad rabtaa inaad sumcad xumayn aad ku samaysid oo dhaleecaysid kaamana mudno waa dad Soomaaliyeed waa dad ehel iyo qaraabo leeyahay qabaa'ilka diga Soomaaliland qaar badan deegaanka ayay deegaan isu soo dhaweyn baa la rabaa isu tacaatuf baa la rabaa Soomaalinimo in la raadiyaa la rabaa lama rabo in caatifad qabiili ah iyo odayaal jaahiliya reebel baa ina nacab iyo reebel inaad ku shaqaysid wali waxaan la hadlayaa kuwa sheegtay in aqoonta leeyihiin ee aftahaniinta ma shacabka caadiga ah waa in aad ku shaqeyn caatifada qabiilaysan ee dadka kala fogeynaysa labada dhinac dadka degan waa walaalo waa dad ehela wax uqdada looma qabo fikirkaaga hadaad Soomaali weyn aaminsan tahay iyo hadaad aaminsan tahay in la kala go'o waa fikirkaaga shakhsiga adoon cid kale xagxaganin baad fikirkaaga dhiiban kartaa ama reer kale aan dhaleecayn ama aan ceebaynin qaar badan oo idin kamida kama ana aragmay idin soo qorin gabar xabiiba la yiraahdo oo Ismaaciil lagu dilay oo ninkeedii dilay idinkoo ka hadlaysaan ma ana arag laakiin gabadha la xukumay kun jeer bad ku soo celinaysaa maxay yeelay Soomaalidu waxay u taqaanaa hadii dulmi meel ka dhaco la sheego ku ceebayn bay u isticmaalaan ku ceebayn marka dulmiga asaga iyo meeshu ka soo jeedo ka dhaca inoo qariya buu dhihi inoo qariyahay nagu ceebaynina adduunku saas ma aha dulmiga adiga xigtada ku aba muhiim ah inaad ka hadashid oo banaanka soo dhigtid si xal loogu helo dadkaaga dhibban baa priority koowaad leh ma aha inaad u fikirtid dadkayga dhibban aana ka hadlin si aan ceeb ugu noqon wax ceeb la yiraahdo ma jiro dulmiga oo dhan baa ceeb ninka geystay uu ceeb ku yahay ninka ay isku qabiilka yihiin ee dulmiga geysanin kuma ceebaysno dulmi uu geystay nin meel maamulo oo dictator ah kuma ceebaysmin bal hadaad sheegtid oo idaacadaha ka sheegtid oo aad hadashid waa guul iyo dadkaaga baad u helisay oo garab istaagtid waad highlight garaysay marka arinta ayadaana intaasan jecelahay oo igu soo noqotay inaan oga baxo ugu dambayn waxaan ku soo gabagabeynayaa dadku way kala fikrada duwan yihiin nin baa aaminsan deegaanku inuu go'o oo wadan gooniye noqdo xoroobo qori caaradii mid baa aaminsan inaan Ethiopian nahay oo meel aynaan u soconin mid buu wax buu aaminsan yahay kuwa inta baan aaminsan inuu u dhaxeeya laakiin ogaada kulligiin isku dambaatiin fikradihiinaas waxaad ku kala bixi kartaan marka cod xaq iyo xalaal la qaado aad suurta gelisaan environmentigii ay lagu qaadi lahaa dadku ay ku codeyn lahaayeen ee ama adiga ama fikirka kale ay ku kala dooran lahaayeen lagu kala iibgeyn lahaa marka environmentiga in la abuuro waa in la iska kaashado haddaad dooni qorigaagii iyo hawshaadii iyo wado oo dhinac ka wada laakiin ku kaalmee dadka u istaagay ama kuwa rabaan environment noocaas in la abuuro waynu isla wada ognahay Ethiopia dadku way ku dulman yihiin intii Ethiopia ay haysatay iyo maamul kasto soo mara marka maamulkan cusub ama isbedelkan cusub ha noqon kuwa ku dulman khilaafaad yar oo dhaxdeena ha noqon hadda xuquuqdaada u dagaalan الحق الدستور كإثيوبيا هذا أقول هذا إن دورة قفكي كمثلا إن حق أتا إن عدك ديبتي إن علن كاتربتيد هي freedom of association يور كاتربت أتسميستيد سنة بتجريها إن جناحستيد شحرة حقوقها أيك أساسية مركز لهلو هل يسوسو يستاجا مركز نور بفكر كوا مسيح يروح الدوني الدنيا دو قري كما إماته يحبط كوي سلا من جستك عيري قري بيكو قبصنا لكن كوا ما أنت كلوري قلدي قري كوا عيري قري ماشي كلوري سنة بتجريها بكلوري تدور أنت مركز عقلية وقتي على رجعان قاضو dadku isku dan isku nacba loo jeedaa laakiin daalimka cabdiya asagu dantiisa waxaan ahayn iyo meesha sidoo ku joogi lahaa ma uu wado rajaaysa ka gelin inuu xornimo ku gaarsiiyo rajaaysa ka gelin inuu dadnimo la yimaado inuu dadkiisa u doornaxo
haweeninka maanta ku xidhaya waqtigan ayadoo Ethiopia ay marayso oday 80 jir ah wiilkaaga ayaa Facebook waxa iga sheegay ama like saaray garashada iyo aqliga aad ka sugaysid iyo danta aad ka sugaysid muxuu yahay ama aabad isleedahay maaragtay uu keeni karaa ma qabo ma keenayo ma hore uma dhicin gadaal lagaga marijo qabo waa ninkii dhaqanka meed in lagu istaago lagu kordhaantay keenay oo adduunka ba aan laga aqoonin waa raja aysa ka gelin abdi baa wax soo wada laakiin aynu ka wada hadallo abdi ka bacdi systemka iyo nidaamka iyo aynu mar dambe ay sidan oo kale u dhixin mar dambe aysan abdi oo kale u soo dhixin haddaad u hanqal taagayso maanta waa maalinkii reerkiina ama reerkanaga qabsanaya oo ayakuna intii ku feeta bilaasi doona ama ku amar ku taagleen doona hantina ka samaysan doona maamulka waa khaldan tahay reerkaagu xaq uma laha wixii dhacay khalad bay ahaayeen aduguna hadda damcad inaad khalad kale ku saxid waa khalad guul gaari meesha ay ku dambeeyeen baad ku dambeeyeen dantaada ka shakhsi ahaan ka qabiil ahaan waxay ku jirtaa iyadoo cadaalad la helo sinaan la helo xoolahaaga lagu ammaan geliyo gurigaaga lagu ammaan geliyo qofkii ku metel lahaad adu soo dooratid aan dusha lagaaga keenin nin walba intiisa ayaa ku filan iyo intuu haysto khayraadka wadanka yaala ayaa ku filan intaan isku mashquulsanahay khayraadka dad kala qaadan waxbana ka soo gaari maayaan laakiin khayraadka in la helo waxay u baahan tahay xasilooni nabad iyo dadka deegaanka degan in qaybtooda laga siiyo sharkooda in laga siiyo taas ayaa muhiimad ah waad noolaan haddii cadaalad iyo sinaan la helo haddii laakiin isku kor noolaansho iyo la helo maaragtay ay timaado meesha anna waa markaygii adiguna noolaan maysid muddo yar baad joogi inta abdi iyo qaraabadiisu ay joogeen kadibna waa laga takhalusi inuu dhici marka ha ku fikirin ha u online shakhsi baynu dooranaynaa qabiil lama dooranayo waa inaad u fikirtaa qofka u soo istaaga xilka inuu qabto ama loo dhiibayo waa shakhsi qabiil looma dhiibayo qabiiladu mid baa sheekha mid baa gaardameer ku shaqaysta mid baa guryaha dhisa mid baa ganacsada mid baa qabiilku xukunka ma wada qabanayo shakhsi baa qabanaya marka shakhsigaas baa la qiimeeyaa shakhsiga baa la qiimeeyaa war shakhsi cadaaladeed ma yahay war shakhsi kartile ma yahay shakhsi u qalma ma yahay akhlaaq ma leeyahay ixtiraam ma leeyahay dadnimo ma leeyahay damiir ma leeyahay wadanka uu iibsanaya marka shakhsiga qiimee qabiilka ha qiimeen reebel miya ina qabsan iyo reebel baa qabsan iyo reebel waxa ma qabsanayaan reebel isku dan ma isku duruuf ma aan lagu awrkacsanin ninka la reebel inoo reebel waa inaan qabsanaa iyo waa doorkeen iyo reebel inuu kuwa awrkacsado rabaa inuu adiga kugu gaaro rabaa jaranjaro maxay reebel ma wada qabsanayaan meesha waxbana ka soo wada gaari maayo haddii xataa ay boob noqoto abdi sidiisoo kale inta qaraabada u dhadhow labaataneeyo ama sodomeeyo iyo inta xididka la inta baa ka faa'iidi adigu waa iska rafaadsanaan geelaagi waa iska dhaqan yaarigaagi ama dameerkaagi waad ku dhaansan marka ha ka yeelin midka adiga aad la xisaabtami kartay aad isleedahay dantaada ayuu hormarinayaa ku qiimee reebel ha ku qiimeen war Soomaaliye wallahi qabiilku guuliin gaarsiin maayo in badan baa aniga hadda dad igula murmaan ogaadeen baan midaynaynaa absamaynu midaynaynaa absame iyo ogaadeen lama midayn karo iyo daaro toona dadku Soomaalinimo ay ku midoobi karaan haddii maanta aan raax absamaan midaynaya weligeed ma dhacayso wuu kala bibix wuu kala siiban haddaan raax ogaadeen baa midaynaya laf baa loo kala bix wala si kala bix waxa weey reebel baa naga badsaday reebel miya weligood nahaynaya halkaas ka sii bix dadka meesha Soomaalinimada ha lagu hayo waa isku dan Soomaali baynu nahay dadkana ku qiimee as an individual shakhsi ahaantiisa u qiimee not qabiilka uu ka soo jeedo marka aniga ay aragtay waa nin reebel ah dhiin Cabdirashiid inaad baratid isku day jaamac markaad aragtid jaamac isku day nin reebel ah oo cararin jaamac qabiil isku mid ah ama isku afkaar ama isku aqoona ma jiro adduunyada arwaanka ii sheegi kara reer isku wada mid ah isku wada aqoona isku wada aqliya isku wada kartiya isku dadnimo ma jiro never meelis marka qabiil dhan ha ku shaambadeen reebel waa ku isaasa reebel waa ma aha shakhsiga ku qiime war shakhsiga shakhsi kartila yahay kartila ma yahay dadnimo la ma yahay u qalma meesha inuu qabto shakhsi ninka nin fiican ma yahay
laakiin qabiilku weligiiba waa basal oo kale si kala furfurmi waxba kuma midayn karti kaliya col baa laga yaabaa iyo reebel aynu ku duulo inaad ku midowdaan reebel baa cola waagi baadiyaha la joogay xataa hadda magaalada reebel laguma mataqaana aanu la dagaalano laguma midoobo laakiin berigii baadiyaha lagu midoobi jiray reebel aynu la dagaalano reebel baa col inala waa soo gabagabeynayaa wixii soo maray dadka deegaanka ha ugu filaato tusaale ha laga taxadaro waxaasoo kale inuu dhaco khibrad ha laga qaato waayo aragnimo ha laga qaato ninana ha ku fikirin sidii oo kale inaad samaysid amaba aad ku soo celisid waxaa kale oo aan u sheegayaa dadka oo idinla socodsiinaya insha allahu tacaala dulmidiid way imaanayaan in badan bay qaar yidhaaheen dibadaha unbaad ka soo qaylisaan naftiina inaad hurtaan diyaar uma tiidin dulmidiid oo xarkihiisii wata dibadda deegaanka ayuu kusoo wajahan yahay weliba magaalada jinacsanay oo saaxiibo badan aan ku leeyahay dad badan oo isnaqaano magaalada jinacsanay baan imaanaynaa oo jigjiga wax yar u jirta kadibna lug baan kaga soo baxaynaa annagoo dadkii laga qaxiyey jigjiga reer jinacsanay intii jigjiga joogtay intii dulmidiid ahayd dir dhabi aadisabab u qaxay iyo ilaa Kenya annagoo oo lugeynayna cabdiilay baanu madaxtooyadiisa ugu galaynaa sidii qadaafi iyo ragii kale loogu galay iyo xiriyihiisa marka cabdiilay xabadaha nala dhaco haduu gees yahay haddaan dhimanana ilaahay baa qadaray matna haddaan noolaanana ma aragtay waa guul laakiin insha Allah taala very soon waqtiga iyo taatik ahaan baan u sheegaynin laakiin mar dhow reer dulmidiid dal iyo dibad oo guuraya ayaa jigjiga cabdi ugu imaanaya bal waan arkaynaa marka ninka uu kaga laandheeraysan yahay kaga xoog badan yahay kaga mataqaana khatarsan yahay asaga iyo 20ka wiil ee ilmaadeerka yihiin iyo 15ka ay xididka yihiin inay bal 8 milyan xoog ku haystaan waynu arki doonaa 8 million people in xoog ku haystaan wala arki doonaa insha Allah taala dadku dhiirigelin bay u baahan yihiin wax aad ficilna in lagu tuso marka waxaan qabaa dhiirigelin iyo ficil hana la xiro hana la dilo insha Allah taala waan imaan doonaa reer jigjiga u sii diyaar garooba reer jinacsanay u sii diyaar garooba haaday wajaale u sii diyaar garooba insha Allah taala dulmiga inagoo isku duuban baynu iska qaadanaa jigjigeennuna ugu tageynaa hadii Ilaahay yiraahdo jigjiga ayaynu ugu tageynaa aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa rag badan baa laga yaabaa inay cabsadaan marka kuwiina diyaarka ah bal magacyadiina ii soo dira imise qof baa diyaar inay raacdo ama diyaar u ah ayagoo gacmahooda saa u taagaya oo qori wadanin ay isku difaacaan inay jigjiga ku galaan ama hal la dilo ama hal la xidho ama wixii la doonayo lagu sameeyo insha Allah taala bal ii soo qor message igu soo dira intiina diyaarka waa ee dhabta ka tahay ma aha dheeldheel iyo ciyaar inta ay dhabta ka tahay away markuu Ilaahay qadar waqti aan ahayn ma dhimanaysid waana idin hor qaadi doonaa insha Allah taala aniga ka shakhsi ahaan baa idin hor mari doona gadaal ma marayo safka hore baan istaagay hadii Ilaahay yiraaho marka xabada ugu horeysa aniga hay ugu dhacdo haday dadku ay dulmiga iskaga kor qaadaan anuguna aan dhinto shahiido waa guul weey insha Allah taala wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baad u mahadsantiin dhamaantiinba haloo diyaar garoobo insha Allah taala daalimkan yar ugu socdaa inta yar aynu israacino kadibna wax quma dadka haloo dhiso oo raasamaal leh oo ay kaga soo kabtaan dhibkii iyo intii soo gaadhay 27 sano la soo dhaafay gaar ahaan 10 sano ugu dambeysay aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiin barhaalahaada waan idinku dheeraada caawa wassalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh